xaflad aad loo soo agaasimay laguna xusayey sanad guuradii 16aad ee aynu ka qaadanay boqortooyada Ingiriiska xorriyadda. xafladda ayaa waxa soo agaasimay safaaradda Soomaaliland ee xarunteedu tahay magaalada London, isaga oo uu hogaaminayay safiirka Soomaaliland u fadhiya waddankan Ingiriiska Mudane Cabdi Cabdilaahi. xafladda lagu xusayey 26 Juun ayaa waxa ka soo qayb galay dadyow aad u fara badan iyo ururada bulshada ee ka jira waddankan Britain. sidoo kale xafladda waxa ka soo qayb galay tiro xildhibaano ah oo ku sugan waddankan oo uu hormood ka yahay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland. hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa sida tan: ambassadorka Soomaaliland si uu xafladda dadka ugu soo dhaweeyo ambassador Cabdi Cabdilaahi Xirsi. bismillaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. marka hore waxaan hambalyaynayaa oo aan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin. waa ilaahay mahadii mujtamacan mudane iyo marwaba dhallinyaro waayeel ee caawa halkan isugu yimi iyaga oo xusaya maalintii 62 sannadood ay ka soo wareegtay ee xorriyaddii jamhuuriyadda Soomaaliland. u mahadnaqayaa dhammaan qabanqaabiyayaashii ka qayb galay madashan iyada oo ay ugu horreeyaan shaqaalaha safaaradda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo community-yaasha kale ee baallaha iyaga ah ay ka mid yihiin Somaliland Society in UK iyo West London Somaliland Community. intaa ka bacdi waxaan halkan ku soo dhaweynayaa xildhibaanada safarka dheer inoo soo maray ee ka yimi dalkii hooyo Somaliland, xildhibaanadeennii qaranka oo ka kooban uu hogaaminayo gudoomiyaha koowaad ee golaha wakiilada Saciid Mira Faarax. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa runtii sharaf ii ah madashan quruxda badan leh ee aad soo ogteen rag iyo dumarba oo reer Somaliland ah inaan wada salaamo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. markii hore hamnigeenu wuxuu ahaa inaan shanta midayno oo wax horseed baynu ahayn oo hamkeenu weynaa tii way inoo suurtagali weyday. marka inaan meesheenna Somaliland aan ku adkaysano oo aynu muruqa saarno oo aynu walaalahaano oo aynu garabka iska taagno. raaqiya ayaan doonayaa inay kelmadda tiraahdo aan ku soo dhaweeyo anigu wala raaqiya soo dhawow. dhaxalkaasina waxaan anigu jeclahay shakhsiyan haddaan raaqiyo Ismaaciil ahay inuu noqdo horumarka siday North Korea ku gaadhay maanta halkay taagantay inayn ka sarraysiino mooye inayn ka hoosaysiino aan jeclahay. so please waddankeena ay runtii xooggeena iyo maskaxdeena iyo muruqeenaba u maalno. runtii xikmadda waxa kamid ah in la aqbalo ood qaadatid qaladkaaga. waxaana sheegayaa inaan kulley fadhiyo xidhan ka yeelnay arrintaasi oo aan ka wada hadalnay. waxaan idiin ballan qaadaynaa insha allahu tacaala that we will never get tired until we make our good better and our bad best. waftigeyga halkan maraya gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo hogaaminayo waxaan halkan aan u nimi inaan kala qayb qaadanno 26 guurada xafladda tan 26 Juun ee maalintii aynu ka qaadanay xorriyadda maxamiyadii Ingiriiska. waanu ku faraxsanahay runtii. mar kale waxaan idhi haddaan loo goyn godkana loo gelin, haddaan kuman geeso mudan geerida, haddaan gobonimo guntiga loo xidhan miyaan guran lahayn midhaha soo go'ay. mar kale waxaan idhi ninkii waxaan weyn hoggaanka dalkow hankaagu ha dhaaf. waxaad joogtaan dalkii Ingiriiska ee xorriyaddeena siiyey. waxaanu dawladda Ingiriiska ugu baaqanaa inay hormuud ka noqoto qadiyadda madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanay dib noogu riixin
dalalka Afrika iyo midowga Afrika oo iyaguba toodii la baaxadagaya in anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca shirgudoonka ama golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland inaan maanta idin kala qayb galo xafladda 62 ee sanad guurada 16 Juun oo ah maalin qarankan qiimo badan ku leh maalin xorriyadeed maalin nabadeed maalin halgan siyaasadeed halgan gobonnimo doon oo loo soo halgamay xornimada dhaqdhaqaaq wax badan soo socday oo midho dhalintiisii ay ahayd maalinta calanka la qaatay baa jirtay waxaan aad ugu mahadnaqayaa safaaradda Somaliland ee halkan UK noo joogto xafladan runtii si wanaagsan soo qabanqaabisay qaybihii kala duwanaa ee bulshadana dee soo casuuntay iyo taariikhyahanadii ururadii bulshada xildhibaanada noo martida ah waxay ahaayeen qoladii soo saxday dawladnimada oo waxa weeye maxamed ibraahim cigaal xaaji ibraahim nuur axmed xaaji ducaale axmed kayse iyo cali garaad jaamac afartan nin baa inta soo saxday gobonnimadu Cabdiraxmaan Shaqale Home Cable TV London